Kusoo dhawaada qaybteennii 11aad ee Programming using Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa if else. Hore waxaan usoo qaadanay if statement, waxaana ku xigay if else statement. Marka if else statement program yaraan ka qaadan doonaa. Programkaas waxaa noqon doonaa inuu ku dhaho number soo geli, numberkii markaa soo gelisid kadibna uu kuu sheegay numberkii aad soo gelisay inuu yahay kisi ama dhaban. Marka aan sameyno variable sameysnaynaa, variable-kana caadi aan soo gelino. Marka number marka inaan soo geliyo hore aan soo sheegnay integer badan la lahaa float isticmaalayna hadda kadibna input function-kii. Marka hadda waxa meeshan kuma qori doono waa numberka iska soo qaadi doonaa. Kadib waxaan jeegareynaynaa numberka inuu yahay kisi ama dhaban. Sidee marka u jeegareynaynaa? Waxaan isticmaalaynaa markaan hadda waxaan joognaa if else. Sidaas darteed waxaa soo horeysa if markaa qortid condition ka qori doonaa. Condition-ka koowaad else condition ma la qor markii la qoraayo. Marka condition-kan soo horeeyo wuxuu noqon doonaa in numberkii ahaa haddii haraagiisu noqdo markii laba loo qaybiyo. Markii laba loo qaybiyo reminder aan isticmaalno. Markii laba loo qaybiyo haraagiisa hadduu la ekaado 0 kadib waxaan soo daawici doonaa kisi. Haddii kalena waxaa soo daawacdaa dhaban. Marka meeshan hal qalad ka jiro. Qalad ka jiro waxaa waaye laba condition bas hadda jeegaray. Haddii uu yahay numberkii markii laba loo qaybiyo haraagiisa ever waxaa waaye kisi, haddii kalena dhaban. Marka qalad ka jiro waxaa waaye meeshan waxaa imaan doonto 0 marka waxaa waaye inaan ka saarnaa. Hadda laakiin 0 waxaan xisaabinaynaa inay tahay dhaban. Marka aan gareyno marka koowaad aan soo gelino number 2 oo kale aan soo gelino 2 oo kasi dhahay qaladka ayuu ka jiraa. Okay, aan soo doonaa haddii laba loo qaybiyo haraageeda inuu noqdo print kisi. Anaga qaldanay meeshan dhaban laga rabay. Kana kisi marka hadda aan gareeyo laba aan geliyo waa dhaban labo. Aan rangareeyo hal aan geliyo waa kisi. Condition saddexaad oo ever ahaa aan dhaanay asiga laftirkiisa in la jeegarayo rabaa. Ever aan jeegarayn hadda marka si wax ka dhigaa dhaban ever. Marka adiga xataa jeegarayn kartaa laakiin ever waxay u baahan tahay condition saddexaad in loo sameeyo. Marka condition saddexaad loo sameynayo aniga if ma isticmaalayno waxaan isticmaali doonaa wax la dhaho elif si hadhow conditionada badan macnaha kula macaamiltan. Qaybteennii 11aad ee Programming using Python intaas ayay nooga eg tahay.